anigu go'aan baan qaatay ninkuna inuu go'aan qaato ayaa fiican waxa weeye gooskaygii markaan u arrimiyay geedu ku qanacsan yahay ayaan uga soo gooyay gurigayga agagaaradiisa geed ku yaala Mustafa oo TV-ga SBC u waramay ayaa waxa uu noo sheegay in uu muddo 5 bilood ah uu si maalinle ah u cunayay geedkan dacarta isla markaana uu maalin kasta cuno 5 kiilo oo geedkana 5 kiilo dacaran maalintii cunaa 5 kiilo dacara maaha 5 kiilo deeqan cunaa deeqa ilaahay ba kamid tahay anigu deeq baan idhahaa deeq maadaama macnaha moogtaan ku qanacsanahay marka وانا كو قناعسanahay وانا ku fiicanahay imika warka la wareysanayo goosigaygaas baan ka jecelahay qaadka waxaan cunay 20 sanadood baan cunay 20 year baan cunayo macnaha imika 20 sanadood waan ka jarayaa daadayda 5 bilood bay saakayga bilaabanaysaa tiradu okay qaadka iyo dacarta labadaba waad soo cuntay bal farqi intee leeg baa u dhaxeeya dacartu aad iyo aad macnaha u fiican tahay xaq caafimaad iyo xaq dhaqaalaba marka kana waa dhiro kana waa dhire dee labadaba macnaha dhameeyay noo dhigay marka kolayadii way iga soo warjeesteen marka kolayada qaarna waa la iga eriyaaba marka حاجة ما قررت سواء سلاد بنا وهالكان فلر كيف سنلها لما فلاسة شهان قبعة وهي مصطفى مركي بلابة سي عنيست دعرته ما لا تشتي دختر سوق كاجور بحياة عافمات كدعرته دختر كيلا يوم بالله تشتي وعنو جوز كي جنا وعنو تشتي جوز كي وشيء قوي قبل كرا وعنكو قناعسنا هاي أوكي واحد تلقي ذاك لا ولكن ودهين كوي هاي maxaad ku dooratay dacarta geedkan ilaahay baa horta ii ilhaamiyay ilaahay un baa moogtay ii dooray ka wax dooraa horta moogtay waa ilaahay waayahay markii ugu horeysay ee aad bilaabasay cunista dacarta maxaa kugu dhaliyay inaad cunto gooskaaga dhaqankiisa lama bedelo gurigaagana dhaqankiisa lama bedelo waayo waxaan arkay dadkii oo ruqday oo sidii xoolihii oo kale caleen moogtay gacanta laga siinayo ayaan arkay marka goosigaygiina markuu aniga iiba goon waayo dadkii ka hadhay sidii goodirkii goosanayay baan iska goostay yaa habeenkiina aniga qaan layma raaco layma yidhaaho intaasuu macnaha gooskaaga waxyeelada caynkaasuu noo geystay layma yidhaaho waanan ku qanacsanahay waanan ku caloodsanahay noloshayda inta ka dambaysana inaan bedelo lagama yaabo marar badan ayaa Mustafa tixo ka tiriyay faa'iidooyinka dacarta uu sida maalinlaha ah u cuno naftanay doqon xunoo daalan baa tahay maantana naftanay doqon xunoo daalan baa tahay muddo badan waan kula dadaalayay dal iyo dibadba waan kula soo maray marna waan ku dilaal tagay maantana darkii dacartana aan ku duldhigay dararka Soomaal baan leeyahay markuu Ilaahay deeqsiiyana waa durdurisaa meeshii dab laga shiday in badil la dul joogtaa maantana darkii dacartana aan ku duldhigay dararka Soomaal baan leeyahay nafta dhameeya dhirta ku dhigo badba dheelka ku cugay dhameeya dhirta ku dhigo badba dheefta ku geliye dhameeya dhirta ku dhigo badkeedu wad ku dhaadanay dhameeya dhirta ku dhigo badba dhaashi ku geliye dhagahaaga mi gelin ninka dhoohan baa tee dumar baa isdheedo dhexdooda ku dhaato ku dhandhaare dhiri maxaa deefta kaga dhaadan biriba waad ka dhaadhicay markay dhacdo halka dhagaxa la isku saaraa dheel ay dhigay dhagahaaga mi geli ninka dhoohan baa tahay isin ku weydiinaya waxa weeye dadka qaadka cuna ee aad makhaayaddan qaarkood aad wada fadhidaan maxaad kula talinaysaa inay anaga igu daydaan oo iska seexdaan oo wadankooda iskaga cawal samaadaan bal sideed u aragtaa in dacarta la cuno adigu in lagu qayro waa fikirkan qaadi karaa kaas kase dawada oo taa daawada horaan de u soo arkay okay adigu ma waxaan baan arkay anigu waxaan la isticmaalayo dima ruugi karayo naftiiba nigu hagaajinayba saaxiibkeen saddex waa cunaya بروتين بدل نرتوان كيلو مصطفى مركان حد إلى حد وريستي حق استي حق نقالية حق جيل سيبة ورتنيو قصة عجيبة هي ساكا الله كل ماي مصطفى عقون هو اسكو ما نان لهين
maqaaxida ayaan iyaroo jaada la soo fadhiistay waxaan arkay ninkan mustafe oo bac dacara cunaya waxay u noqotay wax ama kaaga oo la yaaba dabadeetna waan u qaadan waayey imka wadooda cunaysa xaashan kiilo baan cunaa dabadeetna qisadaasi waa qiso aad iyo aad iga yaabisay maaye anuu bilaabi maayo ummadda kalena waan uga digaya dacarta waxa weeye waxaan caafimaadkaaga la eegin qofku inu iska cuna maaha